wareegtadan oo sabtida 16 November ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxa lagu magacaabay saraakiil cusub oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan ayaa magacaabay taliyayaasha ciidamada akademiyada garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo sidoo kale laanta miinabaadhista ee ciidamada booliiska. Taliyaha ciidamada booliiska ayaa gaashaanle sare Cabdikariin Xuseen Macalin waxa uu magacaabay taliyaha akademiyada General Kahiye. halka gaashaanle Cabdifataax Bashiir Cali loo magacaabay taliyaha saldhigga airportka aadan cadde ee Muqdisho. gaashaanle Asad Cabdullaahi Saciid ayaa isagana loo magacaabay taliyaha laanta miinabaadhista ciidamada booliiska Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan loo baahnaa magacaabistan uu sameeyay isagoona xuseen saddexdani xubnood ee la magacaabay ay yihiin kuwa aad u firfircoon. waxa uu nafaray inay si toos ah u gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday. sidoo kale waxa uu taliyuhu shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale booliiska qaybihiisa kale ka codsaday inay la shaqeeyaan mas'uuliyiintan cusub ee loo soo magacaabay xilalkan kala duwan. Ciidaar Usmaagane, wararka laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika, Muqdisho. si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika, fadlan iska diiwaangeli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.